السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad maqasho xanuunka noocaasi dawo ma laha ama xanuunka noocaasi lagama bogsado taasi waa bini aadamka xaggiisa laakiin xagga ilaahay ma jiro xanuun aan dawo lahayn ilaahay baana subxaanahu wa tacaala xanuun kasta keena isagaana qaadi kara ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya waxaana dhowaantan dhacday wiil dhalinyaro ah oo ku nool mid ka mid ah wadamada khaliijka ayaa xanuunsaday kadibna wuxuu u tegay dhakhtarkii markuu baarayna wuxuu wiilkii u sheegay inuu hayo xanuunka kansarku isla markaana wuxuu u qoray wixii dawo ah ee uu u arkayay inay xanuunka ka khafiifin karto waxaanu siiyey wixii uu awoodi karayay ee tala ah ee uu islahaa way anfacaysaa hase ahaatee sida wiilkii uu ku warramay wuxuu qaaday dariiq aan taa dhakhtarka ahayn waxaanu go'aan ku gaadhay in inta noloshiisa uu la noolaado qur-aanka kariimka isla markaana go'aan ku gaadhay inuu inta noloshiisa maalin kasta akhristo qur-aanka kariimka wuxuu waxaan ka soo bilaabay qur-aanka kariimka suuratul-faatixa marka aan marayo suuratu daaha aayadaha qur-aanka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمطا آياتها قرآنك وإلهي سبحانه وتعالى كورميو إن مالنت قيامها وبربرين دون بورها halkii buuruhu ka taagnaayeenna uu ka dhigi doono meel dirri ah oo bannaan dhulkuna aanu yeelan doonin meel taagan iyo meel godantoona waxaanu yidhi wiilkani aayadaha qur-aanka ayaan ku celceliyey anigoo mar kastana ilaahay ku baryayay awooddiisa anigoo leh ilaahayow awooddaadu waa ta maalinta qiyaamaha burburin doonta buuraha ilaahayow waxaad ka dhigi doontaa halkii buuruhu ka taagnaayeen meel dirri oo bannaan dhulkana waxaad ka dhigi doontaa mid isku siman oo aan lahayn meel taagan iyo meel godantoona ilaahayow waad awooddaa inaad iga bogsiiso xanuunkani haya ilaahayow iga bogsii waxaanu yidhi wiilkani maalmo badan oo aan aayadahaa si joogta ugu celcelinayay ilaahayna baryayay waxaan iska waayay xanuunkii waxaanan dib ugu noqday dhakhtarkii kadib baadhitaan dhakhtarkii igu sameeyeyna wuxuu ii sheegay inaanan qabin xanuunkii kansarka waxaanu yidhi dhakhtarkii wuxuu weydiiyey waxaan sameeyey ee kansarkii aan kaga bogsaday waxaanan ugu jawaabay buu yidhi yansifuhaa rabbii nasfa ilaahay baa iga burburiyey kansarkii burburin bimacnaa ilaahay baa iga kaxeeyey oo iga dulqaaday xanuunkii waxaana shayga muhiimka ahi uu yahay marka qofka muslimka ay la soo gudboonaato xaalad caafimaad darro inuu arrinta koobaad ka dhigto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo oo weydiisto caafimaad taama ilaahay baana isagu cudurka iyo caafimaadkaba haya ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf